بسم الله الرحمن الرحيم هديه بيدله ويا عدي الا ما نهر عيارسا waxan muxuha maskan korsaday muxuha niyo ila ma nahro صباح iga soo bax faska cadu maxaan waxaan ku leeyahay xayawaan ugu tilmaamina arday baan ahay ixtiraamka ka tagna labada aamusude ixtiraam xaya waruuxay wallahi iska soo bax hadaad iska soo bixi wado waan kula qasan wallahi adoo inta ka yar bad bixi wallahi soo bax soo dhaaf wayana garanaysid waa maxay baabka sidii ugu xuriyo waxan bilaa rabaayadii akhlaaqtuna la baran waa dhageysto wariyadeen casharkiina isku guda galeynaa maanta waxaanu ka hadlaynaa hadii bidimkeeda leeyahay ninka la yiraahdo aynu wax ka sheekeynaynaa ninka la yiraahdo Isaac Newton baan ka sheekeynaynaa dhageyso macallin anigu kuma jira macallin waayo kuma jira waa maxay miyaanad arday ahayn wax baranay miyaanad ahayn waayo macallin ma doonayaan inuu ka sheekeeyo qof aan la joogin macallin xambay noqonaysaa may saad wax faantay ma haadeer ma saad wax faantay haadeer ninkani waa nin ajaaniba bari hore dhintay xana maaha waxaan ku sheegaynaa waa wanaag ninka gaalka wanaag baan ku sheegaynaa waxyaabo sameeyay wanaagsan baan sheegaynaa marka iska fadhiisa meesha haadeer idhageyso macallin waan ogahay inaad iga oranayso imka iska fadhiiso laakiin intaan maalin iyo habeen waxaan ka dalay macallimiintu inta kaliya weydiiyaan wax weyn bishii meeday istaag fadhiiso ma ka soo shaqeysay bax kaliya waa intaasu macallin laakiin waxaan doonayaa in yarna dhageysato dhageystaan doonayaa macallin dadkii ugu horeeyay adduunka ilbaxnimada soo gaarsiiyay ee wax u keenay waa dadka islaamka macallin hadday khidad dagaal tahay hadday tu ganacsi tahay hadday wax kale tahayba 10 maadana loo dhigaa 10 ka maada kaliya tan kaliya islaam wax qabtina lagu ma daro gebigeedu waa Einstein waa Isaac Newton waa macallin wadamada gaalada macallin secondary way leeyihiin carruurtooda waxbay baraan ma jiro hal nin oo islaam oo maadooyinkooda loogu dhaxtara kaliya kelmadda islaam marka loo soo hadal qaado waxa loo sheegay inay terrorist yihiin inay argagixisan yihiin hatta carruurtooda marka qaar inay qof islaam hadduu wuxuu doono inuu sameeyo in la bari iska daayo carruurtooda inta kaan geeyaan ay cunto u sameeyaan ay cuntada ka xadaan iyagu carruurtooda ka qariyaan carruurta marka tiraada cuntadii maada waxa ku dhadan islaamkeeda ka xaday carruurta cuqdada islaamka u qaadan xataa marka qaar waxa ku kaliftaa inuu qaarkood inta qori qaataan masaajid galaan waxa masaajidka fadhiya baynay baas mariyaan innagana waqtigan agmaan dhalinteena diinta ka wada baxday bal social media kale meel walba way la taagan yihiin iyagoo waliba ku faraxsan qaarkood xaflado u dhigtaan inay diinta ka baxaan maxaa ku kalifay macallin waa cilmi yaraan macallin ardaygii waxaad noo dhigaysaa anaga ardaygii isagoon garanaynin badka uu dhulkiisu ku fadhiyo ama wadankiisu ku fadhiyo ayaa waxaad u dhigaysaa Australia iyo New Zealand badka ay ku fadhido waliba haduu ka soo shaqeyn waayo si xiwaayad ku canaanaysa waxa laga yaabaa ardaygu waligiiba inaanu suuro gelin New Zealand ama Australia inta ma yani anagu waxba maniin adigu macallin wad soo mushahar doonata meesha mushahar baad ka qaadataa maamulaha iyo macallimiinta furtay iskuulkan kaliya taa waxay uga dan leeyihiin waa meel ganacsi waan ku fahansiiyay macallin markuu maamuluhu noo soo galo uu qolada secondary-ga soo celiyo gelin dambe iyo gelin hore labadaba maxaana lagu dhaxdaa macallin kastoo noo soo galay maamuluhu waxay lagu dhahdaan yaan dadaala waayo tabtanka magaalada si aad u gashaan tabtanka magaalada markaad gashaan iskuulayna la tartamayo tabtanka gala tabtanka maxaa uga faa'iidaa ardayga scholar ma helayo waxbarasho dibadeed looma dirayo waa magacun laakiin macallinku muxuu ka faa'iideeyaa macallinku wuxuu ka faa'iideeyaa iskuulkiisa sumcad buu ku yeelanayaa tabtanka intaas ay galay hadhow toole ardayda sanadka dambe la soo qoriyo iskuulkiisa la keenaya kaliya isagu intaas uga dan leeyahay waalidka qaraabada qof walba wuxuu qoranayaa fasalkee tahay form 1 form 2 form 3 form 4 wala wada farxaya inankaygu waa form 1 inankaygu waa form 2 laakiin ma jiro qof bini aadan oo ku weydiinaya maxaad baratay aqoon intee leeg baad leedahay waxbarashada ka waran sanadkii hore iyo sanadkan maxaad kula duwan yihiin yaag ma shahaadadu hadday wax tarayso secondary-ga laga qaataa ama ay wax faa'iideynayso ardaygu xaggeena shaqo kuma helo dibadaha xataa hadduu la tago waxa laga ridaa meesha qashinka oo dibba kow looga soo bilaabo yani ma aqoonsan haddana carruurtayna waan u dhigayna yaag maxan soomaalidu waxay jirtaa intaasoo qarni tiro male waa loo dhigayay maadiga intaasoo dhan
haddana ma jiro hal nin oo Soomaali oo qalin pencil sameeyay oo adduunyada u iibgeeyay ama Soomaalidu waan faacay kaliya maxaanu ka dhaxalay cilmigii maadigan luutan luganay qabyaalad dil dhac kubsi iyo shaqada wajhi la sugeeyo oo meel kasta shahaado kasta ma seetid CV kasta ma xariisatid wajhiyooda baa ku geynay waxaan naga rabaysan san markaa macad nana bartaan wax wanaagsan oo naanfacaya cilmiga maadiga in la bartaan nagu madiidani cilmiga maadiga in la bartaan nagu macallin madiidani laakiin qofku marka hore diintiisa markuu garanayo uu diintiisa uu aqoon u leeyahay hala bara maadiga maxay dhilinteen diinta ugu wada baxaysa waayo waa aqoon yaraan diintiisa waxay tahay ma garanayn habeenii maalin waxaan dhiganaa Einstein nin kale oo taariikhda history wax lagu dhigay nin kale oo bari hore dhintay taariikhdiisa haddaad garan weydo xilligu dhashay xilligu dhintayna galaaska laga saaraya fasalka laga saaraya waraaqda imtixaanka wala kansalay nabigiisina abtisintiisa ilmihi yara ma garanay halka fadhiya qofku hadduu dhahdo caruurteena diinta aan barna hadduu dhahdo dadku maxay odhanayaan Soomaalida gebigeedu waa calmaani waa sheekh diinta lagu dhooba qaaday waxa maanta dalka ka dhacaya oo arkayna dhamaanteen wada arkayna ardaydu waxa sameynayaan ardayga maxaa u geeyay waayo iskuulaadka qof gooni uu leeyahay kaliya waa meel qofka bini'aadanka waxaad moodaa waa dictator qofka waa kaligii talis qofka meel gooni u leh ardayda waxaad moodaa inay bahaayiin anagu fardaan nahay tartanka lagu galo tartanka gala iskuulkay magac u tahay fasalada waa lagu tartamaya kaliya anaga waxba nama faa'iidinayn waxaan naga rabaysan san markaa maxad خلاص سمعت ما يصير قيرة شبان هذا ورياه وريتك كرسي قاعد طبعا كبعد waxa weerar ku soo qaaday macallinkii wiilkii uu fasalka ka saaray markii hore lagama qabanayo intee kula haardayga diintiisa bar intee kula haado sheeg oo bar macallinka ma jiro kitaab dhulka buugkiisa yaala ama buug nin gaal dhigo oo lagu sheegay qiimaha macallinku leeyahay انت كلها بر كاد المعلم ان يكون رسولا يقبط اساق نيتنا كا قبط اساق ايوه ku jooga nin bari hore inta maanta dubigis aka qabtay isaq niitan yaani ishtana ka qabtaan qofkan waa xayawaan hadii aanad barin qiimaha macallinku leeyahay in ku diray maanta waxa ku geeyay qiimihiisa maad barin kuma garanayo qiimaha adiga iga qabtaan kula imika bari qabtay wala هرو أقول له هرو أنا كنت عليه أنا ورا تانك على ودي واسكت مدري والله يا ورا تقوى معلك ولا خلاص عقبات الغريب عقبات الغريب ليس ولا حاضر عجل ليس لا عين عقبات الغريب